soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa af noolna waa hadle ayna waa ciyaar. damiirkaagu haddii uu ku siiyey ama aad commentiga igu soo qoraysid ama aad luuqa igu soo qoraysid cajuun maxaad u difaaci weyday? balse adiga damiirka ku dhintay aniga imuu dhiman. xaqaan ka hadlayaa, wixii aan arkayana waan ka hadlayaa. adigana kuu daba fadhiisan maayo, qof kalena daba fadhiisan maayo. aragtidayda iyo caqligayga iyo garaadkayga wixii siiyey iyo aqoontayda ayaan ku cabirayaa bartaydan. fadlan haddii uu ku dhibaayo ama aadan u dul qaadan karin oo aad doonaysid in aad dadka dulmi loogu hiiliyo, ha isku soo gelin meeshaydane, igu bax. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan asxaabtayda igu xulin aad iyo aad baan idiin salaamayaa. waa walaashiin waxshida, halkaad iga daawanaysaana waa waxshida ofishiyaal. waa aniga oo mar labaad weji qurux badan idinku soo horfadhiya. haddii aad igu cusubtay waan kusoo dhaweynayaa. hore haddii aad ila joogto kamid ahayd familkaygana waan kaaga mahad celinayaa. waxaan maanta rabaa inaan halkan aan 4 erey oo ilmaadeera aan ka idhaahdo. dadka dulmiga iyo cadaaladda dadka ku taageeraya amase aniga igu soo ataagaya iyaga oo leh iskuna haysta inay saxsan yihiin, maxaad uga hadlaysaa ama maxaad uga doodaysaa? amase mad qabiil ku difaacdid? mayhiyanu naa qabiil. in adeerkay maanta haddii dulmi lagu haysto dee cadow ku daawan maayo, waan ka dhicinayaa. walaalkaana soomaalidu waxay ku mahmahdaa gaalka dil gartiisana sii. walaalkaana haddii uu qaldan yahay gartana ku fur, magtana la bixi. waana siday ahaan jirtay, waadan garanaysaa, waad iska yeelyeelaysaa. qof bilaa-aadana oo miskiina uu wuxuu geystay aanu jirin, ama dumar ha ahaado, ama arrinta imika taagan ha ahaato, ama tu soo socoto ha ahaato, ama tu hore u dhacday ha ahaatee. qof bilaa-aadana oo la dulmiyaayo ood arkay sidood u jeedid, damiirku hadduu ku noolya u hiili buu ku odhanayaa. adiga oon garanayn damiirka iyo jiirhka u hiili ku odhanaya. waana sida dadnimada iyo diinta islaamka iyo aqoontuna ku jirto. aragtidayda ayaanan ka dhiibtay, kana cabirtay, dadkana kamaan duwanayn. haddii aad leedahay qabiil ku difaaci maayana, qabiil ku difaacna kuu difaaci maayo. maankaygaan hadlayaa. siduu maanta wax u dulmiyayo, haddii isaga loo dulmin lahaa waxaad ogaataa garabka aan maanta walaashay siinayo inaan isagana siin lahaa. ta aan isaga farayo qofka kale ee isaga soo doontana inaan farayo. caqligayga waxa aan ka keenayana qofna u daba fadhiisan maayo. taasaan taa kaga soo baxo. xalay kadib waxaan arkayay inankii walaalkeen oo dhaaranaya, isaga oo dhaaranaya oo kitaab baalaha jaray. ninbaa wuxuu yidhi waxa la waar hebel, ninkii hebel baa la waariyaa hebel, ninkii hebelaad garanaysay soomaa guduna xashay dhoosha intu ka qosay buudha waaryahay waar xashka hebel tegay buuhi, maxash la qurminayabaa taasoo ujeedkaygu tahay. inagoo arkayna waxa socda iyo kaliibada meesha la dhigayo, masaajidka uu tegay ma masaajid la qurminayaba? midda kale siduu isagu uu ku xusay afkiisana uu ka yidhi, wuxuu ihi fanaaniinta soomaaliyeed ee hargeysa joogta hay dhaariyaan. fanaaniintii xilibee la wareegtay diintii iyo aqoontii iyo maxay ahayd hore iyo culimadii iyo kitaabkii laysu baarayay. fanaaniintu way haystaayoo mikrofoon bay sidataa. wadaadaduna aqoon iyo cilmi iyo ilaahay wuxuu uu u diray ayay dadka ku kala saaraan kitaabka. ee fanaaniintu dadka kitaab waxba kuma kala saarto, waa dad inagoo kalaa. laakiinse fanaaniintu cilmi aanay lahayn xambaari maayaan. aniguna cilmi aanan lahayn xambaaran maayo, korkana saari maayo. markaa waxaan ku leeyahay in adeer weli kamaad garaabin. weli wixii shalay lagugu haystay kamaad garaabin. waxaan ku leeyahay in aad ka garawdaa qurux badan. midda kalena qofka bini-aadanka ah dadka le ama kaliibyada in la daayo weeyaan, in la daayaa way qurux badantay, waanay fiicantay. laakiin dadka bini-aadanka ah ee le maxay ahayd tole arrintan yaan la wadwadin ama yaan laga hadlin,
kiliibyada la soo gelinaya dadka daawanaya ayaanuna adigaagu dadka daawanayaad ka mid tilayaan la soo gelin ama yaan laga hadlin aniguna ka mid baanay media inta isticmaasho dhan baa loo soo bandhigay haddaan laga hadal dulmiga socdo haddaan laga hadal inta damiirka la haddii aanay ka dhiidhigin haddii aan laga fal celin ogow adna waad la raacsan tahay wuxu uu samaynayana waad ku taageersanta soomaalida hore wuxuu ugu mahmahdaa qosolna quusimaad noqoy markaa waxaa la samaynayaa haddii laysugu sacaba tumayo oon maxay ahayd toole layska qabanaya runtuna laysu shoogahayn ka waranka ku duraya iyo adigaaga ku dhaqdhaqaajinaya kani kubaduuya adigaaga goostambeedka ka qoslaya yaa ee commentiga khaldan ama waxa khaldan qoraya ayaa kaga daranka nabarka u geystay ee adigu jooji dulmiga aad dadka la dhex wareegaysid anigu tolmaan caayin cidna maan ceeban cidna maan cambaarayn tolkayna waxbaanu sheegay caqligayga iyo garaadkaygaanan ka hadlay ta adigu aad ka gabatay ee aad ka hadli weyday adigoo arkaya dulmi inuu socdo ayaan anigu ku dhiiradoon ka hadlay qof walbana aqoontiisu hadlaa inaan weliba hadlay u malayn maayo inaan hadlayba taaga u malayn maayo ee haddii hadalkayga la yeeli lahaa ma aniga tala la ii dhiibi lahaa ta aan ka yeeli lahaa dee waaba la yaraysanayaa dumar baad ka ta waxba dunida kama ogid baa layleeyay laakiinse ta aan ka yeeli lahaa dee way hortaallaa waana ii caddahay ilaa up to now adigaaga ile in adeerkaa difaaco ilaa up to now waxaan ku leeyahay adigu in adeerkaa wuxuu sameeyey iyo dulmiga uu sameeyey ka diidi oo ka hadal oo ka danqo oo aniga ha isoo ataagine hawsha kuu taalla iyo maarka kuu yaalla kala goro soomaali weyna kugula yaaban tahay aniguna aragtideeda cabirayaa ilaa abtinowna waxaan leeyahay tusmo cadaalad bay rabtaa taloo geystayna mid soo noqonaysa maaha iyada iyo samaroon siciid taloo geystay ciidagale waa inuu gogol fidiyaa waa inay ka xaajoodaan waa inay ka garnaqsadaan waa inay ka garaabaan waa in sidii garta loo goyn jiray weligoodba garta way goyn jireen gar aanay arrimin gar may ahaan jirin soomaali weynna iyagaa u arrimin jiray somalilandna iyagaa ka arrimin jiray talamay seegin raggii arrimin jirayna way ku jiraan taladii iyo tusaalihiina allaha u naxariistay suldaan maxamed iyo xaaji cabdi waraabe god lamay gelin aqoon-yahankii u joogaa waxgaradkii iyo oqaashii iyo sandaladii ciidagale weli way taagantay indha sarcad haddaan laysu dhigaynoon laga gabanayn dagaal oogama yihi oo dagaal hadduu dhaco waa dadkaygii kuwan leeyay ka garaaba hadday wax dhacaan kuwa la dilayaana waa kuwaygii dagaal abaabulana ma yihi laakiinse waxaan ku leeyahay ka gara waxaad geysatay oo nin hadduu waalayo tolkii ayaa u miyir qabee keena xun keena wanaagsan ee garaadka iyo caqliga iyo maskaxda u leh waa inuu qabtaa ama igu diid ama